qof jecel ku ciyaarka bilowga hore lama garto maxaa yeelay matalaad ayuu aad u yaqaanaa wuxuu ku fiican yahay siduu xeeladihiisa u horgeliyo si qofkiisa gacantiisa ku jira u hanto wuxuu adeegsadaa taatikooyin kala duwan marka aad dareento in qofka aad wada socotaan uu yahay qof aan jacaylku dhab ka ahayn si gaar ah u fiiri calaamadahan si aad u xaqiijiso dhagartiisa ugana badbaado. qodobka koowaad, qofka jecel ku ciyaarka aad ayuu u masir kulul yahay way adag tahay inuu dulqaato in shakhsiyaad kale uu kugu arko maxaa yeelay wuxuu dareemayaa in dhibaato ay ku soo fool leedahay saaxiibo kuma ogola ma jecla inaad saaxiibo cusub yeelato ama dhanka shaqada aad cid kula saaxiibto aad ayuu xanaaqaa markuu agtaada ku arko qof ay qaraabo yihiin ama isaga wax uu ka yaqaano inta badan waxay cabashadiisu ku badan tahay inuu kuu sheego inaadan waqti siinin inta badan. qodobka labaad, dadka aad jeceshahay inuu kaa fogeeyo ayuu jecel yahay si meel gooni ah uu kuugula baxo wuxuu jecel yahay inuu cid kasta kaa fogeeyo wuxuu jecel raadiyaa in dadka aad danaynayso ama dhibaatadaadu ay dhibayso uu kaa fogeeyo si uu dantiisa kaaga gaaro iyadoo cidna aanan waxba dareemin. qaraabadaada iyo saaxiibadaada war aan wanaagsaneyn oo sumcad dil ah ayuu kaaga sheegayaa si uu kaaga fogeeyo adigana warar been ah ayuu kaa sameeyaa si ay iyaguna kaaga fogaadaan. qodobka saddexaad, qofka jecel ku ciyaarka ah wuxuu yaqaanaa sida howlihiisa u socodsiisto iyadoo aan cidna dareemin waa shakhsi sun badan oo yaqaana sida wax u qiyaamo. xilliyada qaar waxaad arkaysaa inuu aad u xanaaneyn badan yahay xilliyada qaarna uu aad kuugu adkeeyo labada dhinacba xirfad sare ayuu ku leeyahay. wuxuu aad ugu daran yahay in xilliyada qaar uu kuu soo jeedinayo eray xanaf leh uu kugu bahadelayo si uu kuu tuso qiimahaagu aad hooseeyo. markuu arko inaad kaa fogaanayso ama xaalkiisa soo yara fahantay wuxuu isku dayaa inuu dejiyo istaraatiijiyad cusub oo tii hore ka duwan si uu markale kalsoonidaada u hanto. hamoodin inuu markan kuu dabcay maxaa yeelay waa qof ku raaxaysanaya dhibaatada dadka kale. qodobka afraad, lamaanihiisa aad ayuu u yaraystaa si waxa uu doono kaga samaysto marka hore waa inuu hami ee jab ku rido oo ixtiraamka aad naftaada u hayso uu kala jabiyo si kalsoonida aad isku qabto u yaraato. xilliyada qaar wuxuu kuu qirayaa si bareer ah arrinkaagana waa u yaraysanayaa marka hore hal eray oo xanaf leh ayuu kuu bilaabayaa marka xigana wuxuu kugu soo celinayaa erayada xanafta leh isagoo sidoo hore ka badan. 5 wuxuu ku dareensiinayaa inaad dambiilo tahay. dadka noocan oo kale ah waa qof ku qasbaya inuu qarto dambi aan lahayn wuxuu yaqaanaa istaraatiijiyad uu kugu dhiirigeliyo inaad adigu qaldan tahay. wuxuu ka faa'iidaystaa xilliyada uu arko inay kaa jaban tahay ama aad daciif tahay hadalkaaga ayuu isticmaali karaa adiga naftaada si uu kugu jibiyo. si kastaba waxaa waala inaad kala garan karto qofka daacadda iyo qofka khiyaanada badan baatada kugu ah. laga yaabo in qofku jecel uu ka hor istaago saaxiibadaada iyo dadku jecel maadaama uu ogyahay xilli walba inaad qalbiga ka wada joogtaan. waa markuu si dhab ah kuu jecel yahay marnaba yaan lagugu qiyaamin jacayl been ah.